sidee ku noqon kartaa qof guuleysta? waxaa jira wadooyin badan oo loo maro guusha. sidoo kale waxaa jira wadooyin badan oo loo maro guuldarada. daawade, waxaan ahay qof ku dhiirigelinaya. uma baahni qof niyad jaba oo aan niyad lahayn. umana baahni qof aan samir lahayn. sidoo kale kuma caawin karo haddii aadan guuldaro u adkaysan karin. qodobka koowaad, howlaha yaryar marka hore ka bilow. sababtoo ah naftaada mar walbo dhiirigeli. shaqo maanta kuu taalana beri ha u dhigin, maxaa yeelay ma ogid beri wixii dhici doonaa. 2, iska fogee wax kasta oo kaa mashquulin kara inaad yoolkaaga gaadho, maxaa yeelay waxaa hubaal ah in aad xilli kasta shaqo lagu jiri karin oo aad u baahan tahay madadaalo. laakiin ogow in mar kasta ay lagama maarmaan tahay inaad naftaada dhiirigeliso oo aad samayso waxay u baahan tahay. qodobka 3, ka agdhowow dadka guuleystay. mar kasta ay ku garab joogaan dad guuleystayaal ah, waxaa hubaal ah inay kugu dhiirigelinayso arrintaasi. guusha waxaad ka helaysaa khibrado dheeraad ah iyo talooyin ay ku siiyaanna kama labalabaynaysid sida ay tahay ayaad u fulinaysaa. guusha waa mid u baahan in wax walba loo huro. daraasad la sameeyey ayaa lagu ogaaday qofka aan khatarta u bareerin ay adag tahay inuu guul gaaro. waxaa loo baahan yahay nafta in la tuso meelaha khatarta ah ee u baahan in raganimada loo babacdhigo. qodobkeena 5, xal u raadi mushkiladaha kugu hareeraysan. ha noqon qof anaani ah oo naftiisa ka fakara. mushkiladaha kugu hareeraysan ka fakar, wixii aad ka qaban kartana ka qabo. taasi waxay keenaysaa inay dadka ku jeclaadaan maadaama aad mushkiladooda aad ka dhigatay mushkiladaada. ka faa'iidayso tiknoolajiyadda casriga ah. tiknoolajiyadda waa hub laba af leh. waxaad uga faa'iidaysan kartaa waxyaabihii nacfi leh, si dhanka kalena waxaa lagu samayn karaa wax walba oo xun. muuqaalkan aad daawanaysaan waxaa waqtigiisa iyo fikirkiisaba u horay walaalkiin Maxamed Shoole. ujeedkiisuna wuxuu yahay in fikirkiisa qof oo saameeyo waxna ka bedelo qofka habdhaqanka noloshiisa. waa suurtagal inaad taqaano wadooyin ka wanaagsan wadooyinkan aan kuu soo bandhigay, ama aad leedahay skills ka badan skillska aan leeyahay, balse tani waxay iga tahay wax uga bedel ama ku dhiiri qofka walaalkaaga ah si uu wax uga bedelo qaabka uu maanta wax ku wado, uguna wado qaabka ugu habboon ee u baahan in wax loo wado. waxaan idiin rajaynayaa waqti dheer iyo cibaado suuban biidnillaah. waxaana inoo ballan ah muuqaalka xigo haddii uu Ilaahay idmo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.